xarunta dhaqanka nabadda iyo horumarinta bulshada ayaa waxa ay seminar u qabatay qaar kamid ah haweenka ku nool gobolkani Banaadir iyadoona ay ka faa'iideysteen waxaana ka soo qayb galay hooyooyin fara badan. Ujeedka seminarka ayaa ahaa mid looga hadlayay hooyo wax baratay in ay faa'iido u leedahay bulshada Soomaaliyeed iyo sabab ahaanshaha kala taga qoysaska inay tahay aqoon la'aanta. Intii ay socotay seminarka ayaa waxa haweenka ka faa'iideystay isku weydaarsadeen fikradooda iyadoona ay ka hadleen siyaabaha ay wax ku baran lahaayeen. waa tan mid kamid ah haweenka ka faa'iideystay seminarka oo ka sheekeynaysa qaabka ay ugu faa'iideysatay. magacaygu waxa weeye Xasan Muuse barnaamijka seminarka maanta aan soo qayb galay ku saabsanaa dumarka wax bartay iyo dumarka aan wax baranay ku saabsanaa qodobka waxaan ka faa'iideynay waxa ahaa barnaamij horta seminarka mid aad iyo aad anaga taabanaya xuseeyo gaar ahaan dad dumar nahay waxaan ka faa'iideynay waxyaalo badan oo taaban kara ay ahaayeen waxaan faa'iideynay sidee loo manage gareyn karaa sidee maamadu u manage gareysan kartaa wax baratay gurigeeda iyo shaqadeeda hawlaheeda shaqo u manage gareysan kartaa sida ay u manage gareysan kartaa waxaana loo sheegay waana fahanay waxaan u mahadcelinayaa maamulka iyo dadka soo abaabulay seminaarka aad iyo aad u saabsan. Macallin Mustafa Xasan oo ahaa macallimiintii halka casharada ka bixinaya ayaa sharaxaya ujeedka seminarka. Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. maanta waxaa halkan noogu qabsoomay seminar ku saabsan saameynta ay dumarku wax bartay ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda oo ay qabanaysay hay'adda CCBC oo seminarkaas waxaa ka soo qayb galay dumar aad u fara badan isla markaana isla falanqeeyay muhiimadda ay gabdhaha u leeyihiin waxbarashada isla markaana saameyn wanaagsan ay ku yeelan karaan bulshada ay ku dhex nool yihiin hadday dumarkaas wax bartaan si wanaagsan ayuu noogu dhamaaday waa u mahadcelinaynaa dadka ka soo qayb galay iyo dadka soo agaasimay intaba waana mahadsantihiin. ma ahan markii ugu horeysay ee seminar ceenkan oo kale ay u qabata habeenka ku nool gobolkani Banaadir hay'adda CCBCD. Ibrahim Cabdi Green Cismaan Television ka caalamiga ee CCBCD magaalada Muqdisho.